الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. رمضان مبارك، رمضان كريم، جمعة كريم، جمعة مبارك. رمضان جمعة إسئرين واي وجمعه وجودا بي شبعان ما شاء الله. رمضان ينوص وقليس وسان رجينا إن شاء الله. رمضان كريم كل مسلم ملكستي أدوية دافيدة كجوكتان قارها الصومالي وين سيدي الله هاي ma la fiican yahay. waa walaashin raxiimo idin leh kusoo dhawaada qalbi furan maasha allah tabaaraka raxmaan. fadlan haddii markii kuugu horeysata janaalku cusub tahay waajibkiisa mari gambaleelka yar furo dhash siiso si calashan waxaan kulba soo geli kugu soo dhacaan. maasha allah tabaaraka raxmaan. walaashin maanta maxay idiin wadaa? walaashin maanta laba baynti hadday kamarada dro dhaqaaqaysa ka raali ahaada. laba baynti baan rabaa inaan ka hadlo oon inila wadaago. labadaa baynti waxay yihiin labaduba dumar Soomaaliyeed ayay ku socdaan. waa iga waano, waa waano walaaltinimo, waa waano gabadh kaa weyn ama kaa yar, maasha allah, ama kula dhalatay sidaad rabto u fikir aduu waxaad kolba iga dhigato hadalkayga. haddii aad qalad u fahantana ka raali ahow. laba gabdhood oo labada gabdhoodba calashan ma aha laba shaqsi waxaan ka hadlaya, waa laba nooc waaye. waxa weeyaan dumarka aan ku hormare dumarka uurka leh oo uurkooda soo bandhiga social media kusoo bandhiga oo caloosha xayeysiiya oo gacanna kor kaga qabta gacanna hoos kaga qabta. ma aha shaqsi inaan u jeedo, fadlan ha layga raali ahaado, laakiin anigu kulley waa dhaqan anay cajaban ra'yigaygaana ka hadlayaa. walaal haddii adoo aad saa jeclaysatay inaad sawirro ku gasho ood rabto inay xasuus ku ahaadaan, keligaa gal adoona social media soo dhigin adigoo asturan. waaye anigu adiga cadow kuguma hi, wanaagaagaan jecelhaya walaaltinimadaada iyo inaad ka badbaadid isha bini aadanka. ilmahan aad kor ka riixaysid oo kor gacanta kaga haysid hoosna kaga soo qabanaysid gabadh walaashaa ah oo geed dheer iyo geed gaabanba u fuushoon haysan baa jirto. qaarkood laguba furay maya guryahoodii ku burbureen oo layidhi ma dhashaa tahay. marka ilaahay subxaana watacaala xoog kagama aad soo qaadanin oo ayadana allah ma uu siin weynin inimo kala xigsanin, adigana kuma siinin, laakiin ayadana samirkeedu eegaya, adigana bal nimcadaada inaad ku shukrido in kala la eegaya. marka waxaan ku leeyahay gabadh kastoo walaashaya oo Soomaaliyeed oo luqadda aan ku hadlayo ila fahmayso, ilaahay nimcada uu ku siiyay walaal qarso. nimcada ilaahay ku siiyay qarso. kow, jirkaagu waa cawro, calooshaada soo riixaysid banaanka soo dhigaysid. taaniyan waxaaba aniga ila ceeba anaga hooyooyinkay iyo dadkii naga horreeyay waxaa la maqli jiray heblaaya ilmay dhashay, xalay bay umushay ama iyadoo ilmo wadato ya. laakiin maanta waa kane waa lay uureeyay walac baan hayay waa kane. anigu kulley waylaa calashan hadallada qaar erayada qaar inaan sii adeegsada maaha, waa laga yara qurux badan yahay. ilaahay subxaana watacaala nin iyo naag isaga ayaa isku abuuray, huna iskaga dhigay. ayad dhan oo quraan ilaahay kusoo dejiyey. marka wixii adiga ninkaaga idin dhex baray ha keenin banaanka oo alla kugu hadiyadeeyo, alla kugu arsaaqay walaalo, ha keenin dad baalo aan haysanin. waxaa laga yaabaa kuwaas aan haysan inaynan maasha allah ku dhihin allah yaa rabbi anuu maxaan ilaahu kaa galabsaday, kuwanba waa kane waa kuwan waad siisay ay ku dhahaan, laakiin ay maasha allah ku dhihin. marka taasi waa taas waayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis laga soo wariyaa wuxuu ahaa jahorada ma guryaha la dhigtaa oo sanduuqyada iyo meelaha muhiimka lagu qarsadaa mise banaanka la dhigaa si ay ku iimaan lawayaasha kuwa qalbiga ka dhaawacan ugu ciyaaraan? maya, haddaad dheeman haysato waad qarsanaysaa laazim. marka walaalo nimcadu ilaahay ku siiya qarso. gabdhaha uurka leh intaasaan dhahaya. ay shaqsi kasta ah oo aniga qof gaara oon ka hadlayo walaal ma jirto. haddii aad hadalkayga ay qaar dhibsadaan ka raali ahaada, laakiin waa talo walaaltinimo walaalo. waayo alla xoog kagamaad keensan, allaha kugu arsaaqay. halkaasaan uga baxay taas. gabdhaha kalena waa gabdhaha iyagoo wadankoodii haddii adu walaalo aad reerkiina ay saddexda waqti hay cunaan, adigana talaagadu kuu buuxdo, baabuur cad aad wadato, nolosha adduunkaad waxba ka ogeyn. dad walaalahayo Soomaaliyeed baa dhibaataysan oo bilaa biyo ah oo maxay haydaanay gaajaysan. ilmo badan oo waxaa jira qaar agoon yihiin, qaar normal yihiin, oona saddex habeen laba habeen cunto cunin. marka
bir Ramadaan baa la soo galay oo barakaysan. Kolley qof kastoo muslim wax wuu sadaqadaystaa, qofna sadaqad xoog qof kuma lihin. laakiin kaliya aniga ma aha sadaqa bixiya, waxa igu qofkii baxsanayay waa xor, kaan baxsanayna waa xor. waxay iga tahay dadkeennii iyagoo dhibaataysan yihiin oo gaajaysan yihiin oo dhulkeennii abaara ka jiraan. dad baan nahay ilaahay abuurtay, dal baan leenahay. dalkeennii waa sidee dib aan u fiirino. adigoo awoodi karo inaad 2 qoys ama 1 qoys baad sheegaysaa, xataa 1 shaqsi aad afurin kartid. talaagadaada wixii walaal kuugu jira, talaagadahan waaweyneed buuxiseen aad soo bandhigaysaan, fadlan iska daaya. Ramadaan qof walba wuu isku diyaarinayaa, ha u yaraato ha u badnaato, qof walba kaa gaajaysan ee baadiyaha jooga xataa niyaddu uga diyaar galoobaya hadduu waxba haysan. ma fahansantihiin? Marka walaalahay, firinjeeradan buuxa ama talaagadahaas qof walba u fahmayo, ama galaaseerada, intaba waa la dhahaa Soomaali, luuqadeeda alla barakeeyey oo badiyey. nimcadda alla ku siiyey ku xamdi naq. alla subxaana watacaala wuxuu ku siiyey ugu shukri naq, ha kuu qarsoonaadaan. yaa walaalkaaga dhibaataysanna waxaad u awoodo dee markaas aday kuu taallaa. laakiin aniga waa iga talo walaaltinimo. waxyaabahan aad soo bandhigaysana tirada badan iska dhaafa. maaha inay aniga dhibaatay haysato, maaha inaan gaajaysanahay, maaha inaan awlaad haysan. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. intaan haysta rabbi subxaana watacaala ha ii barakeeyo. kuway ogolla allah iiga dhigo. anagii intii islaamaba allahuma aamiin. marka waxaan ilahay walaalo, qof horta Yurub jooga gaajo maba hayso runta marka laga hadlo xaqiiqada, laakiin waa la kala dadaal badan yahay. marka waxaan ilahay dalkeenii dib ha loo jaleeco, waa iga baraarujin walaaltinimo. taasna intaasan uga baxaya. hal wax baan ku darsanayaa oo ah oon u ducaynayo hablaha hooyooyinka ah oo awlaada kaligood qurbaha ku haysta ku korsanaya. waxaan ilaahay allah ya awiik, ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha galo. laakiin walaal foojignaada. qaar badan oo si u kala hambalaalaad leedihiin oo isdhigdhigtay. haddiiba awlaad lagugu furay mar, oo 2 lagugu furay, oo 3 lagugu furay, oo awlaad haysato, inta aad haysato walaal ilaahay baan kugu dhaariyay iska hayso. oo ragganba asad intaad guryaha keensataan qaarkood, qofka bini'aadan qaran ma aha oo lama qaniino, mana aha qof calashan, ma aha bakeeri shaah oo dhadhaminaysid. qofkani marka uu ku soo galayo wuu qurux badan yahay, wuu fiican yahay, waa sheekh, waa geesiga ragga. laakiin berri ka maalinta aad uurka u horeeya u qaado oo dhakhtar tagto, ilmihiyaagii yaraa oo biyaha ahaa ayuu kaaga hoos bilaabaya. wayna dhacday. malaayiinaan garanayaa maanta oo hoos u oynaya. waan ka xumahay, wallaahi aad baan uga xumahay, qalbiga ay xanuunayo. walaal waxaan ilaahay idinkana anigu magaciina anoo sheegaynin, qalbiga allah idin qaboojiyo. waan si wada ognahay. alla subxaana watacaala qalbiga ha idin qaboojiyo. laakiin tani cashar ha idin ahaato. middan cashar ha idin ahaato fadlan. yaa wax dhakhtarada xataa la tashto, waxaad tirahdaan haddaanan fadhiisanayn oo kolleyba aad joogaynin, waxa madadna naga kaxeeyana siya dhahda. yaa oo iyada dhanba hawada ku cuna, waayo awlaadiina walaal muhiim ah. mudho dhul yaala layidhi mudho geed saaran looma dhaafo. kuwa aad maanta haysataan aad gacanta ku haysataan ayaa walaal muhiim ah. kuwaas ayaa idin horan adduunka maanta jooga. marka waxaan ilaahay hala foojignaado. ragga Soomaaliyeedna ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay qaarkood ragga Soomaaliyeed ma wada calashaan dhanne, kuwa qaabkaas u dhaqmayo oo dee ilaahay iimaankoodii subxaana allah shaydaana ka xayuubiyey. iimaanka allah idinku sugo, xaqa allah idinku sugo. ilmaad aabba u tahay, ood waalid u tahay, subxaana allah. bil barakaysan baan soo galay. allahna asturo, cafiya musaamax mar walbo. Ramadaan awal Ramadaan bacda Ramadaan mar walba in la iscafiyo way fiican tahay. khaatimadan allah nagu khatimo oo wanaag iyo maxaydan cibaado wanaagsan allah nagu khatimo khaatimadeena. allahumma inna as'aluka al-husna al-khatima. intana nigaga sii tagayaa mar rabo inuu fiideo inta kasii dheeraado. meel kastoo joogtaan waxaan ilaahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.